la socoto dawladda Soomaaliya waxay soo saartay qaraaro kala duwan oo kamid ah noocyada kala duwan ee dagaalka nimanka khawaarijta ah dawladdu ay la galayso waxa kamid ah in la dagaalamo fikirkooda samaysan maaragtay faafintiisa iyo waxyaabaha ka baxsan anshaxa wax marka tan iyo intii qaraarkii dawladdu soo baxay waxa lagu guuleystay in la burburiyo fadhiyo aad u tiro badan oo 500 in ka badan oo isugu jira Facebook iyo Twitter Telegram iyo TikTok iyo aaladaha kale oo maaragtay kala duwan oo maaragtay ay isticmaalaan iyo website-yo marka hadda waxaan ku guuleysanay ilihii lagu yaqaanay oo muddada badan maaragtay muxuu ahaa dadka ama iyaga taageersan ama sida kale oo wuxuu faafiyay ay kala hadli jireen oo dhan in la xiro welina waa socotaa hawshaasi sidee ku kala xulateen inaad xirtaan barahan iyo website-yadan aad isleedihiin waa kuwa xag jir ah marka wadan noocee ah ayaad u raacdeen waxaan u raacnaa runtii waxay isugu jiraan laba nooc qaybo waa qaybada ayaga lagu yaqaano fadhiyo ayaga ay leeyihiin iyo maaragtay noocyo warbaahineed oo ayagu ay isticmaali jireen oo rasmi ah oo lagu yaqaanay ayaa jira kuwaas de kuwa la yaqaanay ahaayeen sidoodan u xirnay waxa kaloo jira boqolaal maaragtay pages iyo account magacyo shakhsiyaad kala duwan ay ku samaysteen oo iyagana lagu faafiyo fariimahaas khawaarijta ee argagixisanimada argagaxa dilka iyo maaragtay muxuu ahaa meydadka dadka iyo cabsigelinta iyo been abuuradka maaragtay diinta islaamka ay ku been abuuranayaan ay ku faafiyaan marka annaga meel kasta oo lagu faafiyo fariintoodu waxay noo tahay target annagoo dabcan raacayna qawaaniinta caalamiga ah ee xog baahinta iyo shuruucda wadankeena intaba ayaan wax kasta oo aan u aragnay inay yihiin aalad ama meel loo isticmaalo in fariimaha khawaarijta lagu faafiyo waxay noo yihiin maaragtay target marka sidaasaan ku kala saarnaa waad xirteen berito haddii Facebook account kale la furo ama TikTok ama website kale la furo haddana wadada miyaad ku noqonaysaan maalin walba ay furaan idinkana aad xirtaan soo isla shaqada haddana miyaad sii wadaysaan waa runta oo magacyada waa la samaysan karaa magacyada caadiga maalin kasta la sameeyaa cidda hadda dhibka ku qabta inay maalin kasta magac cusub abuuraana waa iyaga inaga ma aha inaga meel kasta oo argagixisada lagu faafiyo fariinteeda waa noo ili aragti waana xiraynaa meeshii aan aragno dadka Soomaaliya jooga oo kaliya ayaa dadka ka xirteen kuwa iyaga arimahaas u walaaleeya oo dibadda dalka ku sugan maxaa talaabo aad ka qaadaysaan runtii waxaan u maleynayaa marka sidaas leedahay in aad qaybta website-yada u jeedo qaybta social media ee Twitter-ka iyo Facebook-ka iyo Telegram-ka meel laga arki karaa ma jirto dabcan Soomaaliya kaliya ma aha maadaama iyagu ay leeyihiin institutions iyo maaragtay hay-ado iyo xafiisyo toos looga xiriiro dawladda Soomaaliyeed ay xiriir maaragtay toos la leedahay marka kuwaas waa meel kasta oo page-kooda iyo account-nadooda social media maaragtay meel ka shaqeynayaan ma jirto midda ku saabsan website-yada iyadana gudahana waa ka xirnay oo maaragtay hadda kama shaqeynayso banaankana insha Allah taala qorshe iyo dadaal ayaan ka wadnaa maadaama dadka yaqaana teknoolajiyadu waa fahmayaan oo waa rajeynayaan inaad garan karto website-yadu waa ka duwan yihiin sida Facebook iyo Twitter-ka ay u shaqeeyaan si ka duwan bay u shaqeeyaan marka iyagana maaragtay shaqan ka hayna insha Allah taala argagixiso gudaha iyo dibadda midna muxuu ahaa dalkeena awood uma yeelan doonto ugu dambeyntii wasiir soo lisma dhigi karo xuquuqda shacabka ay ku doonayaan inay helaan wararka ayaad ka hor istaagaysaan markii aad akoonadan si toos ah u beegsataan maadaama wararkaas lagu fidiyo dadkana ay kala socdaan wixii meesha ka socdo qaarkoodna ay isha ku hayaan waxa ku soo socdo maya ciise warka annaga aan joojinayno iyo macluumaadka aan la dirirayno ma ahan mid ay u baahan yihiin dadkeenu inay helaan ama mid qaanuuniyan gudaha iyo dibadda yacni qaanuun ogol uu jiro waxaan ka hadlaynahay waa wax ay mamnuuc tahay in dadka loo baahiyo oo maaragtay dad la dilayo iyo fariimo maaragtay cabsigelina iyo hanjabaad iyo maaragtay been abuurad iyo marin habaabin ku saabsan kuwaasi marka xogsiin dad xog la siinayo maaha xogta marka dadku ay xaq u leeyihiin ee ay danaynayaan waa u madax bannaan yihiin dabcan wadankeena saxaafad xoogan baa ka jirta idinku aad ka mid tihiin midda kale oo boqolaalka ay telefishinada iyo raadiyaasha ay maaragtay ku jiraan xogtana si maalinlaha aad u tabisaan cid ku haysata saxaafaddu inay xogta soo bandhigtaayna ma jirto dadkeena xaq bay u leeyihiin waana aqoonsanahay qawaaniinteena jidaynaysa laakiin waxaan ka hadlaynahay waa waxa caalamiyan iyo sharciyanba mamnuuc ah oo aan la ogolayn in dadka loo baahiyo sabab la xiriirta ummadda caafimaadkeeda iyo jiritaankeeda iyo nolosheeda iyo deganaanteeda